بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وسلم. soo dhowaada ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad baan idin salaamayaa. waqtigu ha idin wacnaado meel kastood adduunka dacaladiisa ka joogtaan. baraarujinta iyo wax isu sheega waa la isku leeyahay iyo arrimaha la isu soo gudbinayo. aad iyo aad baan idin salaamayaa. maanta taariikhdu waxa weeye bishii 9aad 21 ee September 2019. waa maalin sabti ah. saacaddu waxa ay tahay 10kii aroornimo. walaalahay Afrika ku noolna habeen bay u tahay. habeenka ha u wacnaado. balaayo iyo shar iyo fidmo iyo hoogna allah ka haayo meel kastay joogaan. rabbi maaragtay wanaaggiisa ha ku camimo. markaa intaa ka gudbo, dowladda federaalka Soomaaliya waa dowlad ummadda Soomaaliyeed ay ku naaloonayeen curashadii iyo dhalashadii iyo 8 February 2017 Soomaalidu meel kastay joogto waa la soo koobi waayey farxaddii, dabaaldegii iyo soo dhoweyntii faraha badnayd oo ay dhigeen dal iyo dibad. xildhibaano one man one vote kuma imaanin. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ku yimiday 50 senatarka aqalka sare, 275 aqalka hoose ah. marka la isku daro waa 325 xubnood ayaa soo doortay. aad iyo aad baanu ugu faraxnay una soo dhoweynay dowladda madaxweyne farmaajo uu madaxweynaha u yahay. 15 casho kadib markaa isaga la doortay wuxuu doortay ra-iisul wasaare howlkar ah, xasan cali khayre. wax badan bay qabteen, wax badan bay tareen, wax badanna waa qaseen. xildhibaanadii asaga soo doortay, waxaan ka hadlayaa anigu waa Jubbaland. xildhibaanadii asaga soo doortay, odayaashii xildhibaanadaa soo doortay ee Solaadiin iyo Isinno iyo caaqiliin isugu jiray ee 2012 odayaashii iyo isinnadii soo qoray dastuurka ku-meelgaarka ee lagu shaqeeyo inuu maanta ka dhigo dad aan wax dooro karin oo gacan ku rimisa oo la soo sameeyo oo la soo minguuriyey. axmed maxamed islaam baa ku soo baxay odayaashii asaga 17 doortay. waa odayaashii runta ahaa ee Jubbaland ay lahaayeen. haddii wax qaldameen in wax la soxo bay ahayday inuu cunaqabatayn ku qabto.
maamul asaga ka horreeyey in uusan la shaqay karin miduu asaga maaragtay dhiso inuu la shaqaynayo kii jiray waan duminayaa midna anaa wato waxa weeye meel ay ka shaqaynaysa ma jirto dalku waa federaalku dalka uu yahay in qaybna la burburiyo qaybna la dhisto aniga maaragtay madaxweynaha aan wado waa sharci madaxweynihii aanu imadana sharci ma aha taasi federaalka wax ku shaqaynaysa ma aha waa wax ka hor imaanaysa federaalka wax federaal ka hor imaanayo wey axmed maxamed islaan haddii uusan u qalmin in hoggaan kale mar saddexaad hoggaan loo dhiibto dadka iyo stateka uu joogay baa u cunanmay inuu mar saddexaad hoggaanka u qabto dadku indhool ma aha dadku waa dad wax fahmaya madaxweynihii wuxuu soo jeediyey in uu cunaqabatayn lagu rogo oo la yidhaahdo muxuu ahaa diyaarad kismaayo ka soo baxdaa waa inay xamar timaadaa waa in xamar lagu baaraa arrimahaas calaaqaadka muxuu ahaa caalamiga ah oo aad saartay dowladda muxuu ahaa stateka jubbaland waa mid aan ka guuxayno oo aan ka qaylinayno oo aanu rabno in laga dulqaado culayska dadka reer jubbaland oo aad saartay war madaxweyne dalku waa federaal waxaa tidhi wixii aniga iga horreeyey stateki iga horreeyey war waxaa ka horreeyey jubbaland waxaa ka horraysa koonfur galbeed waxaa ka horraysa hirshabeelle waxaa ka horraysa galmudug puntlandna soomaaliyoon dowlad lahayn bayba yay dhisantay oo waxay dhihi jireen maalintii soomaaliya ay dowlad yeelato baan la shaqaynaynaa haddaanu nahay reer puntland waana dhibaatada dadku u adkaysan waayo oo reer soomaaliyeedna waa maaragtay hoyga ay ku soo qaxayeen waxaa muuqata in aadan doonayn federaalnimo waxaa muuqata in aadan rabin in ay maaragtay state weliba ismaamulo xaq bay u leeyihiin stateyada adduun hadda aniga maraykanaa jooga waad adiguna maraykankaa ka tagtay waad og tahay state kasta asaa isdoorta madaxweynaha noo taliyo donald trump sooma farageliyo stateka aan joogo dadka maaragtay maamulka ka jira iyagaa isdoorta adiga waxaa rabtaa ninaad adigu wadato aad dadka ku tallaasho ujeeddadaadii iyo danahaagana waxa weeye in aad federaalnimada meesha ka bixiso war somalilan baad leedahay gogol baan ugu yeeray walaalahayn gogol baan ugu yeeray jubbaland oo kula shaqaynaysana cunaqabatayn baad saartay ninka kaa runsanaya waa kee marka galmudug maamul baan u dhisayaa baad leedahay nin baa wadaa war hays dhiseen dadkani waxaan doonayaa inay dib u heshiisiin aan u sameeyo ninkay ayaga soo saartaanna waa la shaqaynaa nimaadeedana waa lagaala'ya waxaad rabtaa inaad adiga nin geysato oo adiga maaragtay aad kaa amar qaato oo dadka ay askar kuu naqdaan war dadkaa waa state ku caawinayo garabna kuu ah kulana shaqaynaya la shaqay laakiin ma aha in aad yacni maaragtay abiyuus ku samayso waxaan ka dagaalamaynaa oo cod gaaban iyo cod dheer ku leenahay abiyuuska aad saartay stateka jubbaland ka dulqaad madax haddaad doonayso waa kuwaasaa waa joogaan u tag diyaaradda kismaayo ka soo baxda waxaa lagu baarayaa muqdisho waxa weeye maaragtay ma aha dowladnimo la fidinaya ma aha waxa weeye waa cinqaab
ninka aniga dhistana waa la shaqaynayaa ninka asaga is soo dhiso ay gobolkiisa soo doortana ma la shaqaynayo madaxweyne kaamaanaan siisanayno xildhibaanada axmed maxamed islaan soo doortay waa odayaashii kuwa adiga ku doortay waxaad soo jeedisay in ay yihiin been abuur see ku ogaatay inay been abuur yihiin see ku ogaatay jubbaland odayaasha xildhibaanada soo doortay waa la yaqaanaa waa kuwa adiga ku doortay 325 xildhibaan ee ku doorata adiga 2017 8 February nimankii soo doortay baa adiga yaa soo doortay nimanka hadda axmed maxamed islaan doortay hadduusan u qalmin inuu mar saddexaad soo noqdo maxaa odayaasha iyo xildhibaanada kontonka iyo 7 cod uga helay waay oo uga helay nin u qalmay inuu yahay inuu sii joogo oo sii hogaamiyo stateka ayuu yacni ugu qalmay waxa weeye marka madaxweyne qaabka aa ku socoto qaab federaalism ma aha waa federaal diid SYL waa dhisan weyde al-shabaab baa kaa joojisa isbartiimadii waa dhisan weyde al-shabaab baa kaa joojisa xamar oo degan tahay oo fila soomaaliya ku taallo oo aa ka talisaa wax ka qabalaada kismaayo u tallaabsatay waxaa tiri cunaqabatayna saarnay beesha caalamka waxaan u soo jeedinayaa beesha caalamka waxaan ahaa muwaadin soomaaliyeed ee ku nool waddanka maraykanka mana aan u dulqaadan karin dulmiga iyo dadnimo xumada marka ummadda soomaaliyeed aan u arka haddii dowladda la gardarraysanayo iyo haddii hay-adaha la shaqeeya la gardarraysanayo ninka hadlaanahay ninna uma hadlo waxa weeye arrinta meesha ka muuqata soomaaliya waxay ku heshiisay federaal soomaaliya way kala tagtay waa isbaabi'isay waa isdishay waa isdhacday shaarar badan bay isu xiratay waxay muddo saas ahaataba waxaa la isla gartay in sidan lagu caanamaalo waxaa la yidhi 4.5 xal maahane xal weeye mooyaane xaq maaha waxay keentay federaal in yacni maaragtay dadkii ay ku heshiiyaan waxaa tahay federaal diid haddii aad nin adiga ka amar qaadanayo meel kasta ou tago maxaa imaanayso inaan federaal jirin ood adigu diidayso federaal waxaa diidi kara soomaali oo 1 man 1 vote ku codaysay ayaa diidi karta federaal laakiin adiga kaa siisan mayno inaad diidid dadkana ma aha dad yacni maaragta dabaal ah oo indhool ah oo aan caqli lahayn oon wax fahmayn ma aha dadku waa dad soo jeeda waa dad xurriyad ku hadlaaya waa dad inaad madaxweynahoodii tahay oo dowladda federaalka aad hoggaanka u hayso dad aaminsan baanu nahay dad dowladnimada doonayaanu nahay dad ku taageerayaanu nahay dad ku birigantaarayaanu nahay dad doonayo danta iyo haykalka iyo sharafka iyo karaamada soomaaliyeed doonayaanu nahay ma doonayno in la caburiyo isteedyada soomaaliya ka jira dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waa dad u qalma in ayaga ay isdoortaan ayaga ay la shaqeeyaan dowladda waxaa laga doonayaa inay isdoortaan lana shaqeeyaan dowladda laakiin anaa ninkaanaan wataa madaxweyne ninkaanaan noqonayo ninkaanaan ila shaqay kara ninkaan iga soo horreeyey lama shaqay karo way aad ula shaqay weysa adoo madaxweynihii dalka soomaaliyeeda ninkan hay-adaha dowladda federaalka ka mida way aad ula shaqay la'dahay maxaa uga keensan la'dahay
waxaa tiri al-shabaab oo dadka bam iyo balaayo iyo hoog ula taagan waa soo dhoweynaya mid ummadda soomaaliyeed u maamulayo oo u khidmaynayana waxa cunaqabatayn baad saartay xaggee baan kuu raacnaa xaggee lagu raacaa waxaanu kuu qaadanay inaad federaal diid tahay kaamana siisanayno waana ka soo horjeednaa federaal diid annagu soomaali federaalay ku heshiisay federaalkaynu ku wada soconayaan ilaa one man one vote maaragtay laga gaaro waa public meesha aan joogo abu sufyaan nuur allah ku barakeeyo publican joogaa ha la shaargareeyo ha u tagto dowladda federaalka inay u tagto ayaan rabaa waxa weeye federaalan soo fariistay codkayga meesha aan ka dhiibayo waa federaal waxa weeye public waxaa loo baahan yahay dowladdu nin diidi karaa ma jiro ama jubbaland ha joogo ama puntland ha joogo ama galmudug ha joogo ama koonfur galbeed ha joogo ama hirshabeelle ha joogo wax diidi karaa dowladda ma jiraan waa lala shaqaynaya laakiin inay cunaqabatayn saarto meesha kuma jirto haddii wax qaldameen dowladdaa laga raba inay saxaan sixitaankoodii diyaaraddii kismaayo ka soo baxda xamara lagu baaraya waxaas wax la qaadan kara ma aha wasiirka duulista hawada erayga ka soo baxay iyo erayga ka soo baxay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ma aqoonsini kismaayo doorashadii ka timaado qurxiya idinka qurxiya waxay kismaayo ka qaldamay inaad qurxiseen baa la rabay ma aqoonsini maxay tahay intay iyo yihiin soomaali ma ahan miyaa jubbaland koonfur galbeedaa soomaali ah hirshabeelle waa soomaali galmudug oo maamul samaynaysa waa soomaali jubbaland soomaali ma ahan miya ma lagaa siisanayo taas waa la soo jeedaa federaal diid baa tihiin federaal waxaa la diidi karaa one man one vote maalinka ay timaado oo loo codeeyo federaal ayaa federaal la diidi karaa inta ka sokayso madaxweyne awoodo inuu federaal diido ma jiro sababtoo ah baarlamaan waa madaxweynuhu wuxuu awood leeyahay cod shacab hadduu ku yimaado laakiin hadduu baarlamaanaati yahay ma awoodo inuu burburiyo wax ay mujtamaca uu madaxweynaha ka dhigteen waxay isku raaceen inuu burburiyo ma awoodin marka waxa weeye odayaasha saxda ahayd cabdi maxamed sibriye wasiir kharafaan wuxuu yidhi odayaasha saxda ahayd jubbaland wax kuma dooran yaa asaga bare jubbaland ma reer jubbaland baa kharafaan waa reer galmudug jubbaland odayaasheeduu yaqaanaa waxa weeye dowladda waxaan ugu baaqayaa kulana talinayaa in ay ka dulqaado culayska iyo muxuu ahaa abbayuuska ay saartay shacabka reer jubbaland ninkii yimaado waa la xerayay maxaa u xeri weysaan xeer ilaaliyaha guud ee jubbaland markuu ka soo degay muqdisho oo u dhoofa oo u gudbo muxuu ahaa baydhabo dadka waxaas yaa laga dhaadhicin nin la xeri karaa ma jiro yaa dembi galay ninkii dembi galay farmaajaa la xera hadduu dembi galay waxa weeye madaxda sharciga ka weyn ninaan dembi gelin cid xeri kartaa ma jirto saxaafadda buunbuuninayso axmed maxamed islaana la qabanaya axmed maxamed islaan baa ciidamo loo diray waayo ciidamada ma u diro al-shabaab markuu axmed maxamed islaan ciidamo u dirayo mau al-shabaab u diro
oo ka dhisan la'yahay muxuu ahaa oo ka dhisan la'yahay istaadiga muqdisho oo ka dhisan la'yahay SYL oo dekadii muqdisho ka qaadanaysa canshuur ma uu iskaga dhacasho waxaas awoodda shacabka masaakiinta ah oo aan colaadda iyo xumaatada aanan dul saarnayn ee la colaadinayo ha ka tanasul baaqaas waa baaq ku socdo dowladda federaalka mana ka yeelayno in shacabka jubbaland la carqaladeeyo la abayuuso la colaadiyo kama yeelayno ha la sheergareeyo soomaaliyey nin weliba ha ugu tagta fadhigiisa aniga aad baan u taageersanaa dowladda weligayna waa taageersanahay laakiin ka yeeli maayo federaal baan diidayaa aniga federaalkan taageersanahay federaalkaana shaqaynayo maalinta federaal laga baxayana mujtamaca ummadda soomaaliyeed ayaa maaragtay u codaynaya madaxweyne cod shacab ku yimaado ayaa federaal ka hor imaan kara laakiin madaxweyne baarlamaanaatiya kama yeelayno waxaa fikirka asaga oo wato inuu dadka gelinsiiyo war waddankiiba xurkuuma ahane sideed waddanka u abiyuusaysaa abiyuuska dadka aad ku wado ka daa haddaadan ka dayn waa maaragtay waxna tari maysid oo dad wax kama qaadi doontid waktigaadana gabaabsi weyn saasaan maaragtay aan uga baxayaa haddii ilaahay idmo إن شاء الله هلا شارقريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه هذا دي سلامية